السلام عليكم اسكو soo noqod wanaagsan maanta waxaynu qaadan doonaa maadada anatomiga inoo ahayd mid taxanaha casharkii 12aad casharkani waxa uu qayb ka yahay casharada sida taxanaha uga baxa janalkani casharkani maanta waxaynu ku baran doonaa qodob aad muhiim ah qodobka aynu maanta ku baran doono waxa uu noqon doonaa muscles of upper limbs murqaha adimanka koray aynu baran doonaa murqahaasi oo aynu u sheegi doono teeth by teeth oo aynu u sheegi doono macnaheeda qayb ba qayb waxaan rajaynayaa dhamaadka casharkani inaad la gaari doontid biidnillaahi jalla wa ala ugu horeyn aynu ku bilaawno muscles of arm ama murqaha garabka ama murqaha gacanta qaybteeda kore waxay noqon doonaan laba qaybood qayb loo yaqaano anterior compartment iyo qayb labaad oo loo yaqaano posterior compartmentiga anterior compartment murqaha ku jiro waynu sheegi doonaa waa murqaha horaadka gacantaasi ku jira iyo dambeedka gacantaasi murqaha ku jiro hal muruq ah isaguna waynu sheegi doonaa anterior compartment of the arm waxaa jira saddex muruq saddexdaas muruq oo kala ah deltoid muscle biceps brachialis muscle murqahaas oo ah muruqa garabka oo loo yaqaano deltoid muruqa kusoo xigo loo yaqaano biceps oo ah muruqa kuusan labada muruq ee isku dhegan oo kuusan oo kala leh heat long heat iyo short heat oo loo yaqaano biceps waa laba muruq iyo brachialis muscle oo isagana ah muruq sida tendonka u dhaxeeya qaybtan posteriorka iyo interiorka waana laterally ayuu jiraa markii loo fiiriyo anatomical ahaan posterior compartment hadaynu u gudubno posterior compartment kaliya waxaa ku jira hal muruq muruqaasina waxaa loo yaqaanaa triceps muscle waa hal muruq oo saddex madax leh waxaan loo yaqaanaa triceps muscle murqaha ay leedahay gacanta qaybteeda kore ee loo yaqaano arm halkan ayaynu kaga gudubnay muscles of arm waxaynu u gudbaynaa muscles of forearm iyagana waxay u qaybin doonaa murqahani saddex group saddexdaas group oo kala ah anterior fascial compartment posterior fascial compartment iyo lateral fascial compartment anteriorka murqa ayaa jira gaar ah posteriorka murqa gaar ayaa jiro lateral fascial compartmentigana murqa gaar ayaa jira saddexdaasiba marka waynu kala dhigi doonaa qaybba qayb anterior fascial compartment of the forearm hadaynu fiirino murqaha ay ka kooban yihiin iyagana waxaa loo sii qaybiyaa saddex qaybood superficial group intermediate group iyo deep group superficial groupka murqaha ku jira waxaa ka mid ah pronator teres flexor carpi radialis palmaris longus iyo flexor carpi ulnaris an intermediate groupna waxaa ka mid ah consisting waxay ka kooban tahay hal muruq oo ah flexor digitorum superficialis deep groupna waxaa ka mid flexor pollicis longus flexor digitorum profundus iyo pronator quadratus intaani muruq aynu sheegnay qaybba qayb waxaynu ku bayaanin doonaa qaybaha soo socda aynu ku bilaawno anterior compartmentiga muruqa koowaad pronator teres muruqani waxa uu ka bilowdaa madaxa laftan loo yaqaano humerus kala garabka qaasatan qaybta loo yaqaano medial epicondyle of humerus iyo ulnar head duuda loo yaqaano medial border of coronoid process of ulnar waxa uu ku dhamaadaa muruqani lateral aspect of shaft of radiuska qaybtiisa dhexe markaynu u fiirino dhinac waxa nerve loo yaqaano median nerve waxayna qabataa action ah in gacanta la fidiyo forearmka in la fidiyo lana sameeyo in la duutiyo ama la qaloociyo muruqa labaad wuxuu noqon doonaa flexor carpi ulnaris muruqani wuxuu ka bilowdaa humeral head khaasatan medial epicondyle of humerus iyo ulnar head oo ka bilowda qaybtan loo yaqaano medial aspect of olecranon process and posterior border of ulnar waxa uu ku dhamaadaa pisiform bone fahameed base at 50 metacarpal bone laftan metacarpal bone loo yaqaano mideeda shanaad meesha ay ka bilaabanayso ayuu ku dhamaadaa neerfaha qoodi waxaa loo yaqaanaa ulnar nerve shaqada ay qabatana waa waxay fidisaa waana isu keentaa gacanta khaasatan markii laga hadlayo wrist jointiga oo ah mijinta gacanta meeshaas ayay waxay ku samaysaa flexion iyo adduction muruqa saddexaad aynu ka hadli doono waxa uu noqon doonaa palmaris longus muruqani waxa uu ka bilowdaa medial epicondyle of humerus wuxuu ku dhamaadaa flexor retinaculum and palmar venulosus waxaa quudiyo nerve loo yaqaano medial nerve shaqada uu qabtana waa flexus wuxuu fidiyaa gacanta gacanta ayuu fidiyaa muruqa afraad aynu ka hadli doono wuxuu noqon doonaa flexor digitorum superficialis muruqani wuxuu ka bilowdaa humer ulnar head oo khaasatan uu kaga bilowda medial epicondyle of humerus medial border of coronoid process of ulnar wuxuu kaloo ka bilowdaa radial head oblique line xariiq u taala si jiif ah oo xigta dhanka anterior surface-ka oo ah horaadka markii loo fiiriyo shaft of radiuska qaybta dhexe ee radiuska wuxuu ku dhamaadaa middle flanks of medial four fingers afarta farood markii la fiiriyo
middle phalangeska ayay ku dhamaataa. waxaa kale quudiyo nerve loo yaqaano median nerve. waxa uu inta muruqan inta badan actionkiisu yahay uu qabtaa. waxa uu fidiyaa middle phalanges of fingers faraha qaybteeda dhexe. wuxuu kaloo caawiyaa in ay flexing samayso proximal phalangeska, in ay flexion ay samayso ayuu ka qayb qaataa inta badanba. muruqa xiga waxa uu noqon doonaa flexor carpi radialis. muruqani wuxuu ka bilowdaa medial epicondyle of humerus, wuxuu ku dhamaadaa gacanta metacarpal boonka labaad iyo midka saddexaad meesha ay ka bilowdaan ayuu ku dhamaadaa. waxa uu qeydiyaa nerve loo yaqaano median nerve. waxa ay samaysaa inta badan ama shaqadiisu uu yahay muruqan inuu sameeyo. wuxuu flexion ku sameeyaa waan abduction ku sameeyaa. majinta gacanta ayuu wuxuu ku sameeyaa flexion and abduction. muruqa xiga wuxuu noqon doonaa flexor pollicis longus. wuxuu ka bilowdaa anterior surface of shaft of radius. wuxuu ku dhamaadaa distal phalanges of thumb, suulka meesha ugu dambeysa ayuu ku dhamaadaa. phalangeskiisa marka la fiiriyo midda ugu dambeysa ayuu ku dhamaadaa. waxaa kale uu actionkiisu yahay uu qabtaa flexation ayuu wuxuu ku sameeyaa thumbaga. waxaana quudiyo nerve loo yaqaano anterior interosseous branch of median nerve. flexor digitorum profundus. muruqan wuxuu ka bilowdaa intermedial surface of shaft of ulna ayuu ka bilowdaa. wuxuu ku dhamaadaa distal phalanges medial 4 fingers. shanta farood marka la fiiriyo farta afaraad qaybteeda dhexe ayuu ku dhamaadaa. ficilka uu qabta waa flexation ayuu keenaa. waxaa kaloo uu sameeyaa wuxuu caawiyaa in flexation uu ku dhaco dal iyo proximal phalangeska iyo mijintaba. waxaana quudiyo nerve loo yaqaano ulnar nerve iyo median nerve, labadaba way quudiyaan. muruqa ugu dambeeya qaybta anterior compartmentiga waxa uu noqon doonaa muruqa loo yaqaano pronator quadratus. waxa uu ka bilowdaa anterior surface of shaft of ulna, wuxuu ku dhamaadaa anterior surface of shaft of radius. waxa uuna qabtaa pronation ayuu wuxuu ku sameeyaa forearmka. waxaana quudiyo nerve loo yaqaano anterior interosseous branch of median nerve. waxaa halkaasi inoogu dhamaaday forearmka qaybtiisa anterior compartmentiga. hadda aynu u gudubno qaybta xigta. markani aynu u gudubno lateral fascial compartment of the forearm. muruqaha jira iyagana aynu fiirino. muruqa koowaad waxaa loo yaqaanaa brachioradialis muscle. brachioradialis muscle waxa uu ka bilowdaa lateral supracondyle ridge of humerus. wuxuu ku dhamaadaa halka ay ka bilaabato styloid process of radius. waxa uuna qabtaa flexation uu ku sameeyo forearmka ilaa humeruska. wuxuuna rotation ku sameeyaa uu wareejiyaa elbow jointiga loo yaqaano jointiga ama kala goyska xusulka. waxaana quudiyo nerve loo yaqaano radial nerve. muruqa xiga waxaa loo yaqaanaa extensor carpi radialis longus and brevis. wuxuu ka bilowdaa lateral supracondyle ridge of humerus. waxa uuna ku dhamaadaa posterior surfaceka oo leeyahay laftan loo yaqaano metacarpal bone lafteeda labaad. waxa uu qabtaa extension iyo abduction ayuu ku sameeyaa mijinta gacanta. waxaana quudiyo nerve loo yaqaano radial nerve. posterior fascial compartment of the forearm. posterior fascial compartment of the forearmna waxaa jira muruqa ay ka mid yihiin extensor carpi radialis brevis. waxa uu ka bilowdaa muruqani lateral epicondyle of humerus. wuxuu ku dhamaadaa posterior surface of base of that metacarpal bone. laftan loo yaqaano metacarpal boneka qaybteeda posteriorka weliba khaasatan lafta saddexaad. waxa uu qabtaa extension abduction oo uu ku sameeyo mijinta gacanta. waxaana quudiyo nerve loo yaqaano deep branch of radial nerve. muruqa labaad extensor digitorum. muruqani waxa uu ka bilowdaa lateral epicondyle of humerus. wuxuuna ku dhamaadaa middle and distal phalanges of medial 4 fingers. shanta farood phalangeskooda midda afaraad ayuu ku dhamaadaa qaybteeda dhexe. waxa uuna actionkiisa uu yahay ama ficilka uu sameeyay ay tahay extension ayuu ku sameeyaa faraha iyo gacantaba. waxaana quudiyo nerve loo yaqaano deep branch of radial nerve. extensor digiti minimi. extensor digiti minimi waxa uu ka bilowdaa lateral epicondyle of humerus. wuxuu ku dhamaadaa extensor expansion of little finger. waxa uuna qabtaa waxa uu extension u keenaa metacarpal phalangeal jointiga loo yaqaano oo ku yaalo little finger faryareyda. waxaana quudiyo nerve loo yaqaano deep branch of radial nerve. extensor carpi ulnaris. originkiisa ama meesha uu ka bilowda waa lateral epicondyle of humerus. wuxuuna ku dhamaadaa metacarpal boneka midda shanaad meesha ay ka bilaabato. shaqada uu qabtana waxa uu fidiyaa oo extension uu ku keenaa abduction uu ku sameeyaa gacanta mijinta ama wrist jointiga. waxaa quudiyo nerve loo yaqaano deep branch of radial nerve ayaa quudiyo. muruqa xiga waxaa loo yaqaanaa anquanius. muruqani waxa uu ka bilowdaa lateral epicondyle of humerus. ku dhamaadaa lateral surface of olecranon process of ulna. waxa uuna qabtaa extension ayuu wuxuu ku keenaa elbow jointiga xusulka. waxaana quudiyo nerve loo yaqaano radial. waxaa halkaa inooga eg casharkeenii maanta. haddii ay jiraan su-aalo ama oraah aad inala wadaagayso inoogu dhaaf qaybta hoose ee commentiga. casharka xiga intaynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum.